horta waxaynu nahay waa dadka kaliya oo saddex dawladood 12 gobol ka dego misna maantada tani marka ay noqoto Soomaaliya 12 gobol anagoo saddex dawladood ay ka degno ayaa Soomaaliya gudaheeda waxaynu ka degnaa 7 gobol meel maantada tani Soomaaliya gudaheedu haddii aad ii sheegi kartaan meel aanan lagu dhibaateen shacbiga reer South West maca siyaasiyiintooda war xildhibaanada ugu badan wax federaalka aad ku sheegaysana xildhibaanada ugu badan ilaa 80 ilaa 90 gaarayay anaga ku leh masana maanta tani 3 iyo 2 ayaa ka muuqata intaas oo xildhibaan oo mas'uuliin anagu aynu ku leenahay war ma dii sheegi kartaan maamul goboleed masana gobol aan lagu dilin oo meedka ayaga lafaayiga aysan oleen ma sheegi kartaan markii idinku maanta aad nagu dawataan idinku ma garanaysaa dadkii ugu badnaa mas'uuliyiintii ugu badnaa kule meed noolayna marka hore xil u dhiibinay kuwa mas'uuliyiinta 3 iyo 2 noogu nool 3 iyo 2daana wax weyn xalina kuwa kugu yaalmay waa kuwa garabkaaga taagan baa liiri garab bad u noqon weydeen hase ahaatee waxaan ku codsanayaa codsi bay iga tahay madaxweynaha South West ilaa mas'uuliyiinta ma garanaysaa xukuumadda federaalka waxaan ku codsanayaa inay isku raacaan ee ku midoobaan inay iskaga go'aan dalka iyo dadka ummadan ay badbaadiyaan inay iskaga go'aan waxa federaalka leeyahay ay iskaga tagaan lafaha iyaga meelaha ay naga laayeen ay iska soo aruursano Soomaaliland anaga ka daran Soomaaliland maanta tan lafeeday wadata misna ilaahay baa naclada 10 milyan oo yahuud baa ictiraaftay war anagu ayaga ay daba socon ayaa lafaha iguna isii badanayaan nolol kale nooma hayaan wax maanta ay ku nool yihiin anaga ma garanaysaa ciid ay ka baxaan xukuumad ahaan dal ahaanba dalka ugu khayraadka badan anaga askare oo haddana saas ay tahay anaga ayaga ay laynayaan oo shacbiga ayaga ay laynayaan mas'uuliyiinta ayaga ay laynayaan ayna daba socnaa war dameer xumada iska daa war ilaahay ka yaabay naga saaro waxaan oo labada famil ku soo hadlay laba famil waxay xukumaan mar rabno haddaad igu raacaysaa igu raacdeena igu raac ayaan dhaxdaas waxay dhacday in shacabka reer South West ay ka hadlayaan ayagoo Soomaaliland iyo meelaha iyo ictiraafkoodii waxa ay ka hadlayaan war waxaan leeyahay Soomaaliland inta iska diisaan dadka in ay ka go'aan Soomaali xaq u leh oo xaqna u leh oo Soomaaliland haddii loo eego maanta tani waxay yiraahdaan isku dhaqan baynahay isku diin baynahay isku diin waynahay laakiin anagu Soomaali isku dhaqan mini isku dalna mini haddaynu nahay reer South West taas ayadoo ay sii jirto maantada tani Soomaaliyeed la sheegayo wax weeyaan waa dhowr maamul goboleed weey maamul goboleedkii ugu dambeeyay wax weeyaan waa waqooyi bari maamul goboleedka la yiraahdo war ilaahay baa idinku dhaarshay dad aqli leh oo damiir leh oo damqash leh hadaatiin aad wax garanaysaan maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee ma garanaysaa Soomaaliya ay dhisato waqooyi bari weey maad ii sheegi kartaan maamul goboleed aanan dilin shacbiga reer South West hatta illa mas'uuliyiintooda tan idinku aad sheegaysaan oo aad leedin waa federal wasiir dhanba idinka dishay ayaa illa maantada tani cid ka hadashay aysan jirin war maad ii sheegi kartaan idinkoo maantada tani wax Soomaaliyeed lagu sheegayo haddii idinku aad ku go'odaan magaca Soomaaliyeed la sheegayo ma jiraayo runta haddaan idin sheego war heer dhalinyartii 20 jirka ahayd ayaa inta gabaari lagu daba xiray ilaa nafta ay kaga baxayso lagu jiiday maamul goboleedka Jubbaland ayaa sameeyay shacbigiina reer South West xoogsataa wiliba aqoonyahan iyo ganacsi midna ana lagu haysan ayaa inta ayagoo isku hurday aqalidooda iska jiifan loo yimi ayaa inta la soo aruuray 20 ayagoo dhashiig lagu furo lagu leey maamul goboleedka Galmudug ayaa sameeyay 2008 waa la ii sheegay ma ana xaadir u ahaa ee Puntland waxay samaysay hooyooyinkiina ayagoo laxooxdooda isku dubanay aqaladooda ay joogan magaalada Boosaaso ilaa Garowe qarlo ayaa inta la soo qabtay madaxooga ma garanaysa hooyo madax loo xiray waa markii ugu horeysay anigu aan arko weeye ee ruux haweena inta la soo qabtay madaxiisa gambadii u saarneed laga tuuro madaxiisa inta islaam loo xiro gabaali candhimeedada lagu soo tuuray ayagoo xaamilooyina maad ii sheegi kartaan maamul goboleed maantada tani Soomaaliya ka jiro ilaa Soomaaliyeed idinku aad sheegaysaan oo aanan idin dilin maad ii sheegi kartaan asbaabta idinku aad ku soo dhaweysaan dadkiina laayay oo shacbigiina gumaaday
oo ummaddiinii baabi'iyey oo ilaa iyo soomaaliweynta la sheegay ay jirtay idan laynay idinku aad ku raaci kartaan walaalayaalow maad ii sheegi kartaan maad ii sheegi kartaan idinkoo aad noqotaan maroodigii aakhiro awooddiisa la tusay aad noqoteen maad ii sheegi kartaan maanta haddaad tiraahdaan intaad fadhiistaan calamada amba xaaba cabdi aad fadhiistaan mase afgooy aad fadhiistaan haddaad tiraahdaan waxna dhaafay ma jiraan idinkoo og inaysan wax soomaaliweynta la yidhaha aysan jirayn waa ruux idinku nool oo dadkiinnii ku nool dalkiinnii ku nool oo xoolihiinnii ku nool oo hadhuurkii idinku aad soo saarateen ku nool asbaabtaad u daba socotaan maxayse tahay dhibaatada idin haysato war maxayse tahay asbaabta idinku awoodda alli idin siiyey war dunidan furaheeda ilaahay baa idin dhiibay allihii idin samaystay ee dunidaa idin keeno oo idin khalqay ayaa adduunkaa furihiisa magaca soomaali la yidhaah gudaheeda furaheeda laidinku wareejiyey idinkaa laidinku yidhi idinkaas kale hooyo qabsada asbaabta furihii ilaahay buu idin dhiibay aad cid kale aad ula daba socotaan maxayse tahay shacabka reer south west iyo mas-uuliyiinta reer south west intaba waan la hadlaya maanta kelmaddan idinkula hadlaya caraa iga keentay runtaan idin sheegayahay maxayse tahay wax maantada tani in la yidhaaho anagu soomaali baynu ka madnahay ayagoo la diidan yahay ina meel bulkeedka idinku aad meel ku dhisataan amba aad samaysataan maxayse tahay asbaabtaad ku daba socotaan maxayse tahay mas-uuliyiintu oo ummaddaani dalkaani dadkan u dhaarato 114 ugu dhaaratay ay ugu dawadaan wax federaalkii ay nooga dawadaan maxayse tahay war maad isweydiiseen oo ma garateen dhibaatada idinku jirto amba khayrka idinku jiro waxaad u daba socotaan qoomkan war ilaahay baa idinku dhaashay reer south west waxaan leeyahay iyo mas-uuliyiinta reer south west labadaba waan la hadlayaa war ilaahay baa idinku dhaashay dani waxay nooga jirtaa in qoomkan anagu aynu iskaga daba hadhno oo aynu iskaga tegno ayay dani noogu jirtaa kii ila garanayo ila garo kaan garanayno maala maanta aan ahayn ayaad garan doontaa assalaamu calaykum